waxaa kaloo Mareykanku meesha uu ka saaray lacagtii uu ku kharash gareynayay howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ururka midowga Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo AUSM dhammaan tallaabooyinka Mareykanku uu qaaday Soomaaliya ku aadan bedelida danjiraha gargaarkii bini'aadanimada lacagtii la siinayay ururka midowga Afrika ciidamadiisa nabad ilaalinta waxa soo dhan waxay saameyn ku yeelan doonaan amniga iyo dhaqaalaha Soomaaliya maxaad boosho marka inta laga tago dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wareysi uu bixiyay waxa uu Shiinaha ku soo jeediyay inuu weeraro Taiwan oo Shiinaha iyo Taiwan waxa ka dhaxaysa khilaaf weyn oo xagga diblomaasiyadda bar arrintaasi saameyn noocay ay ku yeelan kartaa Soomaaliya dabcan Soomaaliya siyaasad ahaan way ku yeelanaysaa dhanka diblomaasiyadda Mareykanku Taiwan si gaar ah ayuu ilaaliyaa Mareykanku kaliya maaha wadamada reer galbeedka oo dhan waxaana jiray sharci la meel mariyay dabayaaqadii sanadii 1970 meeyadii